kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga aynu ku soo bandhigayna xogaha injineer Faarax Cabdinaasir Cabdulle kaas oo muddo badanba dhibana u ahaa hay'adaha garsoorka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda al-shabaab. markaas shabaabkii waxay fureen gal caadi ah oo inay guda galaan waxa aan isku hayno iyo maaliyadda markii taa guda galeen amar ay bixiyeen soo deemadaaw mar waxba lacag dafiray amar waxay bixiyeen ah laba qof oo odayaal ah oo midna dhinaciisa ka socdo midna dhinaciisa ka socdo inay guriyihii tagaan injineer geeyaan qiimeyn lagu soo sameeyo anigu maadaama aan qof maxbuus ah aanan ka bixi karin magaalada Gunji waxaan aniga maxbuus ku ahaa kiiskan dartiis hal sano iyo laba bilood oo aan maxbuus ahayo guriga aan ku noolahay iyo hotelka iyo maqaayada iyo waxyaabahaas aniga jeebkayga intaas aan maxbuus ku ahaa qof walba ee tuuladaas joogaanay oday dheh saqiir dheh maaragtay qof professional shaqaysto ama dukaan gata ama cabitaan la ama caana iibiya qof walba waa shabaab adiga inaad xabsi guriga hoostiisa ku jirtid iyo inaad ul caadiya joogtid waa isku mid maxbuus uma tahay waxaan dhan shabaab waa marka odayaashii iyo injineeradii laba dhinac ka socday waxay yimaadeen guriyihii qiimeyn soo sameeyeen mar kale shabaabka waxa uu cadaatay lacagtii aan anigu lahaa sidii dawladda injineeradii ay geeyeen guriyaha u soo cadeeyeen si lamid u soo cadeeyeen xoogaa meeshaas aniga nafisaan ku helay markaas waxa la ogolaaday damaanadaydu inuu wadi karo xamar aan ka soo danaysan karo oo cili karo markii kiiskaas uu soo cadaaday lacagta adugu muddo kadib ay noo yeereen waxay dhaheen hay dacwadii markaa la bilaaba go'aana la gaaraa markaas dambe waxa kiiska soo galay oo wax ka bedelay meesha kiisku socday team amniyaad ah oo arintii amniga iyo codadka iyo waxyaabihii aan duubay daba joogay oo ninkan uu soo tashkiilsaday kuwaas soo galay waxay dhaheen totally garsooriyaha kiiska laga bedelay mid kale loo dhiibay waxa la ninkan dacwadiisa iyo labadana dacwo qaadaysiin dacwad wadin labadana dacwo karta maahan ninkan waa nin askari dawladda waa nin jaajuusa waa nin murtad ah intayna hor joogeen anaku baarisaan wadnay isla codadkii hore lagu maxkamadeeyay ay marka la shiteen aniga marka jawaabay la wareegaba mar kalan hanqaabti u noqday iyo handadaadii iyo waxyaabihii cabsi gelinta ahaa adugu muddo kadib waxay ugu rideen xukun toogasho ah xukunkaas oo la riday 8 bil ka hor intaan aniga isdhiibin علشان أنت دولة دعونا أي أو أنا لها ماركتي أنت وحلاقة قبض أنا وبحكم أنا هذا وأبيه هو يدك وعيان الكربة جلنا مركا بس حكم دلة وإنا أنا هينين تشاتشوس وأسكري الدولة السردانة أي وردي سعتنا وحيد هن ولا يدو قال حاجة مسيسو حوالها حاجة كوع عضاري waxyaabaha ninka ana dhex maro shacabka ay adaa beerdareeyay koo waxay ahayd maalinta uu qaladkan sameeyay dawladda inay u soo dacwatay wilaayada marka adaa gaal la tacaamulay marka adiga iyo nasiibka adoo saasan xabsi ku galay oo dil suga ah odayaal iyo dad isxilqaamay iyo guluf kadib xabsiga dilka waxa la igu bedelay 4 qodob oo waxba dilka dhaamin 4 qodob waxay kala yihiin كو إن عند دعوة قبل كبنادر سوحله لبا حوالها نكان عن كلية تطلمين تبين كتناسو سدح ساعد والبا أنا الشباب إيه بهذا حتى هذا إيش غير صايع إن هيجن هذا إهلام مدو وكوك معناها فيري مدو كوك لبصنا ساعد والبا إيه بهذا أنا إهلام قبل كبنادر أنا كبح مدة أفراد أهد إن ninka naftiisa iyo maalkiisa iga nabad galaan guriyahaasna aan wareejiyo oo aan madax banay halka markii joogto ninkii asaga ay farta taagtay wuxuu ku yiri ninkan lacag aan u hayaa $1470 waxaan rabaa maxkamadan iga wareejito waxa la dal lacag haysid oo gasha akoonkiisa u shub $1470 kii akoonkayga maadaama dad wada shaqeynayna oo akoonkayga hayo oo ku shubay rasiidkii u keen warqad waxay qoreen ah ay leeyihiin
banaan ka soo qortay nootaayo macmila oo isagii hadlaa uu leeyahay ninkii lacagtii waa u shubay ee saan waaye 5 qof oo markhaatiyo shabaab ka soo qortay warqadaas la keenay waa hayaa intii talaa bis aniga sidaas aan u soo tigi oo liga soo fasaxay aan xamar imidba aniga go'aan waxaan qaatay inaan galna xirin telefoonkooda dambana u hoggaansamin meeshaan beeri lahaa dee askari noqon lahaaya waddanka isaga bixi lahaaya sifo walba oo nimankaas kula dagaalami karo inaan galo total aan u hoggaansamin wax soo amra waxay ugu adkeed inaan aabahay hooyaday ku qanciyo inaan dhammaan awaamiirta shabaabka u hoggaansamin oo aan idhaahde haddaan dhintane dabcan shahiidan hayo aqira in shafaaca qaada tiin noolaadana dee waa aniga iyo ilaahay maalintii ugu tala galan baan dhimanaa wixii ugu adkaa inaan weerarka ku qanciyo qadiidaan oo aan dejiyo ilaa nolosha ilaahay baa bixiya sidaa nolol ma ahan raalli hado adoo hooyo aabay uga qanceen aniga maalintaa markii wixii ka dambeeyey gobolkii banaadir waqtigii dacwada inaan kusoo xiriir rabo waa dhamaatay wax oo awaamiir dambe ah leeyihiin uma hoggaansamin waxay soo waceen nimankii odayaasha ahay oo aniga dabintiga ah waxay ku amreen inay hor keenaan maxkamaddii horgeeyaan odayaashu way yimaadeen waxay dhaheen yahow nimankii ku wacaa hortag maya waa ka diiday mar kale familkii hooyo iyo aabe iyo adeeryaal iyo nabadoonnada caadiga ah laanqeyrta casoo gobolka banaadir jooga iyo dadkii familkii dhan ay u geeyeen warbixinta ah inaan dil ku xukumana oo mar labaad nimankii xukumeen aniga dee taasu hoosna ima dhigin imana niyad jabin keli ah inaan wixii dee ka soo horjeedido aniga aan ka soo horjeedo nimankaas aan ku sii dhiirado oo aan xaqiiqina raadsado xog walba oo wax u dhibi karta oo aan intaan meesha maxbuus ku aruuriyo aan gudbiyo baan maaragtay xoog saar waa tahay engineer kiiskaaga imisuu socday sanad ahaan inta shabaabka xaggiisa kiiskayga shabaabka xaggiisa wuxuu socday 1 sano iyo 2 bilood oo aan gacanta tooda ku jiray iyo 8 bilood oo ay ka hor raadinayeen oo xukun sano u ahaa marka waa isku celcelin waa 20 bil dawladdu waxay isweydiinayaan waa kuma oo magaciisu qofka ninkii dhibka inta la eeg aad la martay ama aad ku geystay ninkan waxa la yiraahdaa Sharif Ali Yaro la yiraahdaa waa nin bakaaraha ganacsi ku leeyahay bay dhabayray xaafadda la yiraahdo guriyihii anigu aan dhisay ugu yaala oo maaragtay magaciisu marka waa Sharif Ali Yaro ee tafasiil intaas ka dheeri ah qofka dabcan civil engineering ka waa dhakhtarka oo kale qofka uu la tacaamulaa yaa waayo iyo qabiilkaaga iyo xageed ka soo jeedaa iyo sax ma kaliya qofka engineerka farsamadiisa lagu xushaa asaguna qofkan wuxuu ku aqbalaa in interest ugu jiro marka ninka magaciisa waxa la yiraahdaa Sharif Ali Yaro dokumentiyadana ku qoran yahay waxaanu gal fayl go'na dhex maray dacwo ah dhinaca dawladda ee magaciisa ku xusan marka waa kaas ninka dacwaduna dhex martay oo aniga intaanu dhib ii geystay sababtoo ahaa dee dabcan intaasoo dhibaataade iyo intaasoo macaamil argagixisa isagama dhiira karo qof shacab ah anigoo kala ah oo raba inuu mustaqbal sameeyo ama magaalada ka shaqeysto marka engineer aad muqdishaad ka ganacsanaysay oo xirfadaada iyo aqoontaada aad ku shaqeysanaysay saameyn kugu yeelatay go'aankii al-shabaab ay ahaa inay ku dili doonaan maadaama ay iyagu ku dhaheen amarkiina ayaad khilaaftay sidee u saameeyay noloshaadii guud saameyn way ugu yeeshay oo dee sababtu way iska caddahay aniga ma shaqeeyo hadda xirfadeyda kuma shaqeeyo xirfad kalena kuma shaqeeyo yani magaaladan muqdisho aan joogaa waxaan ku noolahay inaan anigu nimankaas cadawga meeshaan uga safe garoobi kara iyo meelaha aan isleeyahay waa safe inaan maaragtay shakhsiyan aan ku noolaado shaqadeydii iyo barnaamijkeygii iyo dee wax soo saarkeyguna waxayba istaageenba waxayba yeeshaan soo maahan cadow adduunyada wax ka jira ku warxaq daraw yeesha xirfadeydii marda haddii aan anigu argixisay taagto ah waxaan ku qasbanahay inaanan moogtahay waxa la yiri qofku dhiifiis u socdaa inaan anigu ira shabaab ay raadinaa
oo amaradooda jabiyo haddana aan u shaqo tago meel walbo oo xirfadeedu ay gasho sax ma marka maadaama nafsiyan baan ugu aan taargida shakhsiyan xirfadaasna waa saasi ku sii boos garowday aniga hadda ma shaqeeyo